asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasheeda qiimaha qayaalo meel kastood joogtaan kusoo dhawaada shabakadda wararka ee Sela 24 waxaanu idiin haynaa warkii wasiirka maaliyadda Soomaaliland uu maanta ka jeediyey golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta ay ahayd Khamiis. Haddaba Soomaaliland Ukraine maxay kala soo degi jirtay? Soomaaliland kolba haddii ay eedeeda cid saarto miyaanay maalin kasta u baahanaynin inay eed raadiso ay saarto kolba meesha iyada wax ka khaldan yihiin ama wixii ka khaldama ay sixi lahayd. Soomaaliland maanta waxay maraysaa inay tiraahdo sixir bararka Soomaaliland gudaheeda saameeyay iyo cuntada dhabalka noqotay ee dadkii masaakiinta ku adkaatay waxa mas'uul ka ah wadanka Ukraine oo wax badan inooga iman jireen. Haddaba daawada ama dhageyste maxaad ku ogtahay oo Soomaaliland taga oo Ukraine ka iman jiray? Soomaaliland masareenka cunta ma qabandida cunta labadaas ka yimaada Ukraine. Soomaaliland masaliidda isticmaasha oo cuntadeeda ah taas ka iman jirtay Ukraine. Soomaaliland baastada bariiska inta waxay ka keeni jirtay Hindiya, Pakistan, Malaysia, Indonesia iyo Masar. intaasna cuntada kama kicin. Haddaba Soomaaliland miyaanay u baahnayn bal eedeedan maalin kasta wadada saxda aan marin inay meel kala saarto. COVID-19 wax kasta oo kacay Soomaaliland waxay saartay COVID-19 maantana bal haddaba yay saari doontaa. Ukraine waxa kaliya Soomaaliland uga iman jiray waa qamandidana waxa laga isticmaalaa Soomaaliland ta gudaheeda ka soo baxda inta kalena Ethiopia ayay uga iman jirtay. Laadkii Soomaaliland ayaa waxa la kordhiyay 85%. reerkii laga qaadi jiray $20 waxa laga qaadi doonaa $60 ama $80 laakiin dadku ma karaan. wasiirka maaliyaddu wuxuu u baahan yahay bal haddii inuu ka taxadiro in kastoo xukuumadda waqtigeedii dhammaadayba waxa dadka loo sheegayaa ma runbaa mise oo wax warqada lagu soo qortay oo nolosha aan saameyn ku lahayn. doonaya hadalka ku saabsan sicir bararka inaan 5 meelood aan u qaybiyo. qaybta hore waxa weeye waa xaaladda sicir bararka ee wadanka maanta ka taagan. talabaadna waxa weeye sicir bararka guud ahaan ka taagan caalamka. saddexaadna waxa weeye sababaha keenay sicir bararka. kaafraadna waxa weeye wixii dawladdu ay ka qabatay. ka shanaadna waxa weeye waxa meel inooga yaalan u baahanahay inaynu ka qabanno. haddaan ku bilaabo qodobka hore madaxweyne daraasadii u dambeysay la sameeyay bishii Abriil ay samaysay wasaaradda qorsheynta waxa ku cad in sicir bararku ahaa markaas isagoo sanadla ah marka la isku wada daro ascaarta oo dhan 6.9% sanadle. haddii cuntada goonin loo qaado wuxuu ahaa 7.3 sanadle ayuu ahaa. tamarta marka goonin loo qaado iyana waxay 10.5% bay ahayd. madaxweyne haddii la sii fasiro nambaradaas oo loo qaado hal loo qaado kadbadii sonkorta ahayd 13 ahayd dollar imika waxay maraysaa 17. sidoo kale daqiiqdii ahayd 11 imika waxay maraysaa 17. 5 litir saliidda 9 ahaa hadda wuxuu marayaa 14. ascaartuna inta way isbedelaysaa xataa inta ay maanta joogto birta waxa laga yaabaa inay iska bedesho. kartoonka baastada ee $9 ahaa maanta waa $11 weey. madaxweyne sicir bararkaas aan soo dulmaray mid innaka inoo gaara maaha waa mid caalami ah oo dunida dhanba ka taagan. maxaa keenay amba keenaba sicir bararka? sicir bararku waa sixir isbedelay uun wax kale maaha oo kor u kacay. sixir oo dhan waxaa gooya helitaanka iyo baahida amba supply iyo demand kaasun baa gooyin runtii marka suuqu uu xor yahay. marka waxyaabaha bedela waxyaabana waa waxyaabo dibadda ka yimaada waxyaabana wax dalka ka yimaada oo sababtoo xikmada dalka. sicir bararkeenu inta badan wuxuu ka yimid dibadda. waxaanu ka bilaabmay saf markii COVID-19 ayuu ka bilaabmay markii uu dhacay oo bando lagu soo rogay meelihii wax laga soo saari jiray oo dhan. waxyaabahaynu ka qabanay sababaha wada madaxweyne waxaanu sameynay inaynu ka dhaafno cashuurta wax halaaliyo wixii qalaba iyo wax halaaliyo wixii alaaba ee loogu talagalay in la geliyo beeraha. hadday cagaf tahay iyo hadday bacrimin tahay iyo hadday sun tahay intaba waynu ka reebnay cashuurta. sidoo kale warshadaha cuntada waynu ka reebnay
waynu ka daynaa cashuurtii alaabta ay u baahnaayeen dibadda ka keenayeen iminka warshadaheena qamadiga soo saara qamadiga ay ka soo dejiyaan berbera lagama cashuuro inagoo u danaynaynaa maxaan idhahdaa dadkeena madaxweyne waxaanu kaloo sameynay inaynu cashuurta ka dhaafnay 4 shay oo waaweyn 10%. waanu bisha January ilaa June lixdaa bilood waxaanu ka daynay 10%, kuwaas oo bariiska iyo sonkorta iyo daqiiqda iyo saliidda sayn dadka uga yarayno culayska ka soo fulay sicir bararka. madaxweynada laftigeeda miisaaniyadda waxaanu u gelinay wax soo saarka qadar ilaa 4 bilyan oo Somaliland shin ayaynu gelinay oo 4 mashruuc aynu ku maalgelinay mashruuca Wajaale Beer iyo Oodweyne mashruuca cilmi baarista iyo fidinta mashruuca ilaalinta cudurrada dhirta iyo mashruuca aynu ugu talagalay in wax kaga iibsano beeralayda xilliga dalaggu u soo go'o si aan sicirka hoos ugu dhicin. xaaladaha adag sanadkan runtii gugii way naga baaqday aynu ku xisaabtamaynay hogolo weydeen baraawiinta badan way buuxaan laakiin dhowrkii may ee la rabay inay soo saaraan baad iyo doog xooluhu ku soo noolaadaan runtii maynaan helin xoolihii weli miisaankoodii wax badan iskama bedelin xagaana wuu bilaabmay marka duruufaha adaga ka dhalan doona waxaynu u baahnay si dhow ula soconno isla markiina aynu ka ajiibno. waxaanu kaloo baahnay madaxweyne in aynu caalamka maxaan idhahday ku baraarujinno si joogto ah xaaladda ay ku saman yihiin dadkeennu oo waxa isugu biiray roob la'aan iyo dalag la'aan iyo sicir barar baa isugu biiray marka taan ku baraarujinno caalamka runtii si wax nooga qaban lahaayeen iyada laftigeena waynu u baahanay inaynu shicibkeena la socodsiino had iyo jeer marba xaaladdu halkay marayso iyo saynu maaray